دوادا wax waliba aan hotelka ka sheegi lahaa wariyi ayaa sheegay marka waxaan idin leeyahay inaan waqti badan idinka qaado ma doonayo soo dhawaada waa dad Soomaali ee isu tago wax qabsaday taasina waxay ka marakacaysaa marka dadka isku tagaan in at least wadankooda xun ay ku celiyaan marka soo dhawaada aad iyo aad baad u mahadsantihiin xafladan aad ka soo qayb gashaan waana ku mahadsantihiin waa idinku mahad celinaya salaanka bacdi aad ay farxad noogu tahay in caawa aan halkaan isugu nimaano oo aan ay tahay horumar ganacsi oo cusub oo lagu soo ziyaaday iyo waliba adeeg qurux badan oo aad dhihi karto waxaan joognaa caawa hotel kamid ah hoteelada caalamka ee 5 star-ka ah oo kale hotel ah inaan caawa inteena aan isugu nimaano oo saan aan live isugu sheekaysano rag naga mid ah ay inta isugu tageen ay maalgelin ku sameeyeen aad aan ugu mahad celinaynaa walaalaheen waxaan rabaa ganacsatada Soomaaliyeed inaan ugu baaqo waa ku shaqeynaysan iyo si ka badan laakiin inaan saan oo kala dalkeena aan wax cusub ku soo siyaadino waxaan hadalkayga aan ku soo aruurinayaa hambalyo walaalahayga maalgashiga sameeyay ee noo sameeyay hotelkan waan ku faanaynaa waan u mahad celinaynaa inta ka shaqeysa boqolaalka ka shaqeysana waan u mahad celinaynaa inta ka soo qayb gashana sidoo kale shirkan shirka ku xigo waa ururkooyooyinka iyo hotel doormi waa mahadsantihiin waxaan aad iyo aad ugu mahadinayaa asxaabta oo maal gashatay hotelkan ha ahaado gaange saaxiibkii gaange Hussein Khaliif Ahmed Caliye waxaan qabaa inay yihiin pioneers ay u horseedeen in maalkooda ay gelin karaan Soomaaliya gudaheeda dad fara badan maalkooda hadda waxay geliyaan Kenya oo ka dhistaan guryo iyo hoteelo ay ka dhistaan dad fara badan oo Soomaaliya markii la arkay inay maal gelinayaan wadanka gudihiisa investors kale oo ajnabiga ana waxa gelayso himada gelayso waxay leeyihiin nabad waa timid waxay meel lacag la geliya direct meel laba taalo waxa waaye wax aad iyo aad loogu farxo waaye waxayna natusinaysaa in maalin walba nabad soo kordhinayso waxaan marka hore u mahad celinaynaa maamulka hotelka oo runtii juhdi geliyay iyo dhaqaalaba sidii hotel noocan oo kale ah looga dhisi lahaa dalka gudihiisa maalgashi Soomaaliyeed oo runtii keenay in dalka bilicdiisana ka qayb qaataan horseeda in shaqo abuur dhalinyarada u noqoto keena bulshadii meelaha dalxiiska u tagi jiray inay dalkooda gudihiisa ku helaan hoteeladii ay runtii lagu raaxaysan lahaa waa mahad gaar ayaa u jeedinaynaa